بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وصلى الله على سيدنا محمد halkan waxaan kaga soo gudbin doonaa qiso yar oo aad iyo aad u xanuun badan murugana leh kuna dhacday wiil dhalinyaro ah oo muslim ah oo weliba taajir ah kadib markay dhaqaatiirta ay u sheegeen in uu noloshiisa la sii noolaan doono cudurkan hadda haya ee kansarka loo yaqaan inuu la sii noolaan doono oo kaliya 7 bilood laakiin cali wuxuu leeyahay waa hadii xag alle iga bal daawade waxaad ka fikirtaa adigoo lagu dhihi lahay waxaad dhimanaysaa sanad hebel ama maalin hebel ama bil hebel siduu noqon lahay dareenkaaga bal aynu daawano sida uu noqday dareenka cali سبيل الدموع سبيل مريح تنهدى يا صاحي كي تستريح وبث الدعاء الخفي علي بنات waa wiil dhalinyaro ah muslim ah kuna dhashay kuna barbaaray magaalada Sydney ee dalka Australia kaasoo ku noolaa nolol guul ah aad fiican inkastoo ay dhawaan noloshiisa ku bedeshay qaab la yaab leh waa tan sheekada cali xagee bay ahaatay noloshaada maxaa kugu dhacay cali barta ay ku sugan tahay nolosheeda ilaahay baa mahad iska leh ilaaha soo ii hibeeyay kansar inuu ugu dhaco jirkeyga oo dhan waxaan bedelay nolosheeda una bedelay inaan caawiyo dadka waa maxay sababta ugu yeertay hadiyad cali ilaahay baa mahad iska leh waa hadiyad maxaa yeelay ilaahay wuxuu ii siiyey fursad aan isku bedelo muxuu leeyahay kansarka oo indhahaaga kala furay wax walba oo nolosha ka mid ah xitaa hawada hadiyadda ugu yar hawada aanu neefsanayno oo fareeshka ah Do you feel like you used to take that for granted before? How long have you had cancer? ilaa goorma ayuu ku hayaa kansarkan 4 bilood oo hadda laga joogo cali waxaa lagala tacaalay kansarka ilaa uu ka gaaray marxaladda afraad waxaana la siiyey 7 bilood si uu u noolaado darbu markuu helay warka inuu cali dhimanayo cali wuxuu iibiyey ganacsigiisii najaxay waxaan lagu qasbay inuu dib u eego noloshiisa dhalaalkeeda ee uu ku jiray cali muxuu ahaa jawaab celintaada markaad ogaatay inuu kansar ku hayo waxaan ka takhalusay gawaarideedii waxaan kaloo ka takhalusay saacadaheygii xitaa dharkaygii waxaan u qaaday dibadda waxaan siiyey dad badan oo halkaas ahaaday waxaan isku dayay inaan adduunyada ka tago aniga waxba haysan sida darteed waxaa leedahay miya qorshe aad ugu takhalusaysid adduunyada mayna fahmin nolosha raaxada leh cali uu ku jiro ilaa uu nagu cazumay qolkiisa gaarka ah iyo nafurnimada cali waxaan waa maxay cali ila hadal tani waa jijin waxay qiimaheedu yahay $60,000 $60,000 ha satuuqidan maxaa ahaaday cali waxaan oo dhan waa kabaheyga shaygan oo kale qiimihiisa waa maxay cali ku dhawaad $1,300 kana meeqa ka bixisay $700 daaskan jooga daaskan jooga maxaa ku dhacay ookiyaalayaashaadii qoraxda ookiyaalayaasha qoraxda oo dhan waan ka takhalusay waxaan siiyey walaalo jooga Afrika So you're telling me there's a kid in Africa that's walking around with Louis Vuittons and Can I try one of these hats on? I've only mentioned them in my talks like 100 times. You can try the red one, slimmer than the decent one. Barakallah. Where reckon else? Shaq Gucci. Ali's interested. cali rajadu adduunyada kala hay way tagtay si kadis ah kuma lahaan boos qalbigiisa adduunyada Like when you look at this, cali maxaa dareemaysaa markaad fiirisid gaarigan oo jooga $600,000 inaad wadid gaarigan oo kale xaqiiqdii xilligan la joogo qalbigayga waxba kama ahan kadib markii qofku sheego inay jiran tahay aan haysan waqti badan aan ku noolaato taasina waa mid aan maalin kasta u noolahay And this is how we should be living our life every day. how like these people with cali gaarigan oo kale dadka waxay jecel yihiin inay lahaadaan ama inay wadaan wallahi dadka waxay aadeen meel khaldan waxayna xaqiiqsan doonaan markay ay jiradaan laguna sheego inaadan noolaan doonin waxaad xaqiiqsan wax walba haysin waxba ku tareen waa maxay qiimaha uu ka joogo gaarigan qalbigaaga gaarigan waxaa igala qiimo badan joog dacas ah u iibiyo wiil afrikaan ah oo dacas haysan wallahi taas igala qiimo badan inaan arko ilmo yar oo dacas haysta oo dhoola cadeynaya intaan lahaan lahay gaarigan oo kale xagga alle cali markuu qorsheeyay inta ka dhiman noloshiisa iyo xoolihiisa wuxuu go'aansaday inuu caawiyo ku nasiibka daran kadib safar caadi fadxan baarsan uu ku tegay qaaradda Afrika cali wuxuu aasaasay hay'ad dadka caawisa una gargaarta kana qaybtirta baayahooda qaaska ah and a school in Africa to serve as an ongoing charity for him when he finally has to depart this world.
All started from arrinta ayaa waxay igu dhalatay kadib markii aan booqday qabuuraha kadib markii uu gareeday walaalkay una dhintay kansar waxaan joogay qabuuraha kana fikrayay nafteeda kadib markii aad dhimatid meeshaan oo kale qofna kulama joogi doona aaba ma lahan hooyo ma lahan walaal ma lahan kaliya ay camalkaaga mooyee xitaa lacagtaada wax ku tarimayso markan waxaan ku raacaya sadaqadaada taasoo kaa caawin doonta waqtiga qabriga ku jirtid ilaa aad ka gaaraysid yoolkaaga u dambeeya Sadaqah. That's the only thing that's going to help you gradually for your time in the grave till you get to the ultimate destination. As the reality of death further sinks in, Ali cali intiisa badan waqtigiisa wuxuu geliyaa inuu isku diyaariyo la kulanka uu la kulmayo abuuriha abuuray ee Allah subhanahu wa ta'ala rasuulka sallallahu alayhi wasallam wuxuu yiri qofkii jeclaada la kulanka ilaahay wuxuu jeclaada la kulankiisa qofkii naca la kulanka ilaahay wuxuu naca la kulankiisa adiga cali ama jecesha in ilaahay la kulantid I love him to meet Allah. Because of this cancer kan dartiis qof walaalaha kamid ah ayaa wuxuu uga taliyay inaa qaato dawo qaas ah si ay iga caawiso xanuunka daran subhanallah aad bay u xooganeed waxaan ka qaatay qayb badan dawadii waxayna igeysay meel aan weligeed tagin ma garanay meesha ahayd aad bay igu adkay subhanallah waxaan arkay ma arag weligay qoyskayga hareerahayga ayay buuxeen waxaan ishaarayay kor waxaana dhahayay ilaahayow qaado waxayna ahayd meel aad u qurux badan waxaan arkay weligay ma arag maalinkii xigay waan soo kacay waana dawaqmay maxaa yeelay ilaahay subxaanahu wa tacaala muusan iqaadan it was that beautiful what I was seeing. I just wanted to go. And the next day, subhanallah, I woke up and I was upset that Allah didn't take me. Well, I ask Allah subhanahu wa ta'ala. ilaahay subxaanahu wa tacaala waxaan ka baryayaa inuu ku dahiro kuna caafiyo kuguna baaqiyo la agteena waqti dheer ilaahay waxaan ka baryayaa inuu kugu jazeeyo jannooyinkiisa jannatul firdaws aamin aamin walaalkayga muslimka ahow kadib markii aad daawatay qisadan aadka u murugada badan cali waxaa la siiyey oo dhaqaatiirta u sheegeen inuu la noqon doono kansarkan 7 bilood oo kaliya kadibna uu geeriyoon doono laakiin cali wuxuu leeyahay waa hadiyad xagga alle iga timid oo ula jeedo kansarka walaalkayga muslimka ahow qisadan aadka u murugada badan waxay ka faa'iideynayaan waxyaabo badan kow waa inuu qofka isku diyaariyaa mar walba inuu geeriyoonayo saacad walba xilli walba daqiiqad walba labo waa inuu qofka isku diyaariyaa la kulanka ilaahay jeclaadana la kulanka ilaahay suu ilaahay subxaanahu wa tacaala u jeclaada la kulankiisa saddex waa inuu qofka sadaqada badsadaa sida fiidiyogan ka muuqata afar qofka xoolo kasta uu haysto waxaa raaci doona oo kaliya camalkiisa sida fiidiyogan ka muuqata shan inuusan adduunyada qofka uusan israacin lana ahaataa wax agtiisa ka liita lix waa inuu qof ku sabraa dhibaato walba oo lagu imtixaamo ilaahay subxaanahu wa tacaala wuxuuna ugu bedeli doonaa hadduu ku sabro janno walaalayaal sidaan wada ognahay waxaa ina sugaya qabriga waxaa naga horeyn doona kuleel huur cidlo mugdi ciriiri laakiin waxaan uga baxaynaa ilaahay subxaanahu wa tacaala waa maamintiisa aan qaadano kana tagno wixii uu naga reebay raacna uuna faray kuna dagana rasuulkeena salawaatullahi wasalaamu calayh marka walaal u duceey walaalkeen cali banak ilaahay subxaanahu wa tacaala inuu caafiyo والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته بذكر الإله تطيب الحياة تسر أسارير وجه صبيح تسر أسارير وجه صبيح سبيل الدموع سبيل مريح تنهدى يا صاحي كي تستريح